bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada sahan cable TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dibadbax ka dhan ah Macron oo ka dhacay Soomaaliya iyo weeraro ku socda waa daawan doontaan saaxiibayaal madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo si kulul uga hadlay arrimo maalmahan ka taagnaa magaalada Muqdisho beesha caalamka oo cadaadis xoogan ku haysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ra'iisul wasaaraha Thailand oo sheegay in uu iscasili doono haddii aysan joojinin shacabka dibadbaxa ka wada dalkaasi daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu door corona markana ku soo dhawaada iyagoo intaas ka faahfaahsan qaar kamida gobolada dalka Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ka bilowday banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo aflagaadadii nabigeena nabadgelyo naxariis ahaatee oo uu geystay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron boqolaal ruux oo isugu jira haween rag iyo qaar kamida ardayda wax ka barata iskuulada magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay maanta halkaasi ka dhigeen banaanbax ay uga soo horjeedaan aflagaadadii loo geystay nabigeena nabadgelyo naxariis ahaatee oo uu geystay madaxweynaha Faransiiska banaanbaxyaasha qaarkood ayaa waxa ay gubayeen sawirada madaxweynaha Faransiiska sidoo kale boqolaal ruux oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa ay banaanbax ka wadeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho iyaga oo si adag uga soo horjeeday hadalkii madaxweynaha Faransiiska inta badan dalalka Islaamka ayaa waxa ka dhacay banaanbaxyo xoogan iyaga oo dhammaan banaanbaxyada lagu gubayay sawirada madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kula kulmay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan labada mas'uul ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha la xiriira fatahaadaha soo noqday deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan fatahaadaha ay kumanaan qoys ku barakaceen ee magaalada Beledweyne wasiirka beeraha Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa si gaar ah waxa ay diiradda u saareen mashruuca biyo-xireenka Beledweyne kaas oo dhismihiisa dhawaan la bilaabi doono gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda Soomaaliya waxa uu kala dardaarmay waxa uu ka dalbaday inay xal u keento fatahaadaha ku soo laabtay magaalada Beledweyne oo sanadkiiba 2 jeer ay ku barakacaan kumanaan qoys Audio Jungle.